xisbiyada dalka Mareykanka ayaa isku marila baaritaanada ee xilka qaadista. Xubnaha xisbiga madaxweyne Trump ee jamhuuriga ayaa waxa ay ku eedeeyeen adigooda dimuqraadiga inay wax u dhimayaan amniga qaranka iyagoona xoog ku galay goobtii su'aalaha weydiintu ay ka socotay. Madaxweyne Trump ayaa dhankiisa cambaareen dusha uga tuuray ee xubnaha xisbiga dimuqraadiga. Warbixintan waxaa si dhow ula socday Axmed Beder oo iminka stuudiyaha igu weeliyay. Axmed faadumo xubnaha xisbiga dimuqraadiga aan iraahdo xubnaha xisbiga jamhuuriyiinta ayaa waxa ay ku eedeeyeen dhigooda dimuqraadiga in amniga qaranka ay gorgortan gelinayaan kadib markii 20 xildhibaan ay si xooga ku galeen goob ay ka socotay su'aalo weydiin iyo baaritaanada gedi socodka xilka qaadida madaxweyne Trump. waxa xilligaasi su'aalo xoog ay ku galayeen xubnaha ka tirsan jamhuuriyiinta su'aalo la weydiinaya Laura Cooper oo iyadu ka tirsan waaxda gaashaandhigga oo marqaatiyalkaasi ku bixinaysay. kulankaasi waxa ahaa mid albaabada ay u xirnaayeen oo markaasi aan saxaafadda iyo dadweynahaba aysan u furnayn. waxa ay xubnaha markaasi jamhuuriyiinta ay iyagu ku eedeeyeen guddiga baaritaanada ku haya madaxweyne Trump iyo waliba xilka qaadistiisa in arintaasi ay u sameynayaan qaab la mida sidii Sofiyeedka oo kale oo aysan sharciyada markaasi marayn. markii ay xubnaha jamhuuriyiinta gudaha u galeen goobta ay su'aalo weydiintu ka socotay ayaa waxa uu jawgu ahaa sida tan. We're going to go and see if we can get inside. So let's see if we can get in. We're going in. Congressman, any questions? My questions are, why are they letting us in? madaxweyne Trump oo isagu ka hadlayay soo bax uu ku qabtay gobolka Pennsylvania ayaa waxa uu eedeyn dusha uga tuuray xubnaha xisbiga dimuqraadiga. waxa uu sheegay inay yihiin kuwa ay ka midaysan oo kaliya buuq iyo fawdo. You know, they're vicious and they stick together, but they're lousy politicians, I will tell you. moogtahay inay yihiin siyaasiyiin buuq ka samaysan oo aysan jirin midka kala qabanaya. waa siyaasiyiin aad u buuq badan. waxaan kuu sheegayna waa dhab. laba shay ayayna ka saman yihiin buuqa iyo inuusan jirin midka kala qabanaya. They stick together and they're vicious. madaxweyne Donald Trump ayaa wajahaya baaritaano la xiriira eedeymihii lagu eedeeyay in Ukraine uu ka dalbaday caawin si markaasi sare lagu qaado fursadiisa in dib loo soo doorto. madaxweyne Trump ayaa waxa lagu eedeeyay in sharciga uu jabiyay kadib markii madaxweynaha dalkaasi Ukraine uu ka codsaday in macluumaad ama warar dhaawici kara ololaha doorashada ee ninka ka soo horjeeda iyagu markaasi ay shaaca ka qaadaan. aad ayuu mahadsan yahay Axmed Beder oo nala socodsiinaya wararkii la xiriiray xisbiga Mareykanka oo isku marin la baaritaano xilka qaadista ee madaxweyne Trump. isla qodobkaasi ayaa qaar ka mid ah dhageystayaashu waxay ka soo dhibteen iyaguna araahdooda. dhageystahan lagu magacaabo Axmed Maxamed Cabdulle assalaamu calaykum buu yiri wuxuuna joogaa sida uu sheegay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. runtii waan soo dhaweynayaa buu yiri in xilka laga qaado madaxweyne Trump. dhageysta kale oo la dhaho isna Cabdiraxmaan Sulub Sheekh oo jooga Boosaaso runtii buu yiri xisbiyada Mareykanku waa mid aad u adag buu yiri waana in xilka laga qaada madaxweyne Trump. qaar ka mid ah dhageystayaasha ayay ahaayeen oo qodobkaasi iyagu araahdooda ka dhiibanaya.